ma maqasheen wax asal ahaan xalaal ah balse marka uu isbeddelo noqdo xaaraan. waa wada hadal gaaban oo dhex maray nin muslim ah iyo nin kirishtaan ah. dhegayso qisadaani. waxaa la weriyey in nin muslim ah uu marti u noqday nin kirishtaan ah. ninkii martida loo ahaa si wanaagsan ayuu u soo dhoweeyey, wuuna wanaajiyey. wuxuuna u keenay canab wuu cunay, kadib wuxuu u keenay cabitaan laga sameeyey canabka oo muddo meel yaalay ilaa uu khamri ka noqday. ninkii muslimka ahaa wuxuu ku yidhi, kani waa xaaraan. ninkii kirishtaanka ahaa ayaa la yaabay, wuxuuna ku yidhi, muslimiintiina sidee bay ku dhacday in aad cuntaan canabka oo xalaal ah balse aad xaaraantimaysaan waxa laga sameeyey? markaas ninkii muslimka ahaa ayaa ku yidhi, ma leedahay xaas? wuxuu yidhi, haa. wuxuu ku yidhi, ma leedahay gabadh? wuxuu yidhi, haa. wuxuu ku yidhi, ii keen labadoodaba. markii ay yimaadeen xaaskii iyo gabadhii ayuu yidhi, gabadhan waxaa dhashay xaaskaaga, haddana ilaahay wuxuu kuu xalaaleeyey hooyadeed, wuxuuna kaa xaaraantimeeyey gabadheeda. sidaas oo kale canabku waa xalaal, laakiin marka uu isbeddelo oo uu khamri noqdo wuxuu noqdaa xaaraan. markii uu maqlay hadalkaas, ninkii kirishtaanka ahaa si degdeg ah ayuu u qiray xaqa, wuxuuna ku dhawaaqay shahaadada isagoo yidhi, ashhadu an laa ilaaha ila allaahu wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah. subxaanallah. waxaana ku soo gabagabaynayaa hadalkii nebi yuunus, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. ilaah kale ma jiro adiga mooye, adigaa xumaan dhan ka hufan. runtii waxaan ka mid ahaa dulmiilayaasha.